بسم الله الرحمن الرحيم. أو أحكبر أنه ودينته what is a 360 degree feedback أما قيمينتا وحقبت كشقالها أو قيمينيا لنعيك لدون فضلا مركو هوري كسو لغيسو لفاق هوسي معناها performance appraisal أما قيمينتا وحقبت كشقالها حدان مركان قيحنو معناها 360 degree feedback وحنكو قيحي كرنا إني تهي نوع كترسان قابوبك لغو قيميو وحقبت كشقالها waana hab qiimeyn dhammaystiran oo la ururinayo qiimeynta ay sameynayaan dad kala duwan oo la macaamilay ama yaqaana qofka la qiimeynayo haddaba ilaha kala duwan ama meelaha kala duwan oo laga helayo qiimeynta waxaa ka mid ah intaan hortiina ka muuqata oo aan mid uga hadlayno kow waa supervisor ama waxaa qiimeyn u sameynayo qofka madaxda u ah qofka la qiimeynayo aan dhahno qofka la qiimeynayo waa Maxamed haddaba qofkan madaxda ah waxa uu qiimeynayaa Maxamed awoodiisa hogaamineed hab fikirkiisa inta uu la egyahay xirfadda iyo kartida uu leeyahay Maxamed si uu shaqadiisa u guto iyo wixii la halmaala labo waxa sidoo kale qiimeynaya waxqabadka Maxamed dadka ay shaqo wadaaga yihiin kuwaas oo darajo ahaan la siman Maxamed waxa ayna ka qiimeynayaan waa sidee wada shaqayntiisa xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya waa sidee saddex waxa sidoo kale waxqabadka Maxamed qiimeynaya dadka uu isaga madaxda u yahay waxa ayna ka qiimeynayaan waa sidee xirfadiisa hogaamineed ka madax ahaan hagida uu siinayo iyo ka shaqaynta horumarkooda waa sidee afar sidoo kale waxa waxqabadka Maxamed qiimeynaya waa macaamiisha shirkadda balse waa hadii uu ka tirsan yahay dadka ka howlgala u adeegida macaamiisha shirkadda waxa ayna ka qiimeynayaan xirfadiisa u adeegida macaamiisha sidee bay ahayd sidee ayuu uga jawaab celiyay baahidii ay markaas qabeen macaamiisha si guudna sidee bay u arkeen xirfadiisa shan si Maxamed fursad loo siiyo isagana uu isqiimeynayaa waa inuu qiimeeyaa horumarkii uu sameeyay waxqabadkiisa muddadii ay qiimeynta qusaysay iyo gaaridda yoolkii laga filayay haddaba marka xogtaas qiimeynta kala duwan oo dhan la soo ururiyo lana dhiraandhiriyo ayaa waxaa laga soo saarayaa meelaha ay ka midaysan yihiin dhinacyadaas kala duwan oo qiimeynta sameeyay sidoo kale waa in la ogaado halka uu Maxamed uga baahan yahay in laga hormariyo markaa kadib ayaa waxa uu Maxamed la kulmayaa qof ka socda waaxda shaqada iyo shaqaalaha shirkadda si riboodkii laga soo diyaariyay qiimeyntiisa loola wadaago sidoo kalena waxay ka wada shaqeynayaan ama isla horumarinayaan qaabka uu Maxamed ku hormari karo si uu u gaaro meesha uu hadda joogo meel ka fiican markaa kadib waxa ay Maxamed wada kulmayaan qofka isaga madaxda u ah si ay iskula meel dhigaan hadafyada laga filayo inuu Maxamed muddada soo socota uu gaaro sidoo kale horumarintu u baahan yahay iyo sidee sare loogu qaadi karaa waxqabadka Maxamed muddada soo socota gunaanad qiimeynta waxqabadka shaqaalaha ee ka imaanaysa dhinacyada kala duwan midaas oo ah qiimeyn dhammaystiran waxay asaas u tahay in la ogaado meelaha uu ku fiican yahay qofka la qiimeynayo sidoo kalena meelaha uu horumarka ka sameyn karo waa halkee iyo sidee ayuu qofkan shaqadiisii uga soo dhalaali karaa kuna gaari karaa yoolka laga filayo hadda koor ayaan ka soo hadalnay qeexida HRM iyo performance appraisal ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose rabbana taqabbal minna innaka antas samiicul caliim maadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo